asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan meel baad joogtaan mar kale waxaad kusoo dhawaataan janaalkeena hill soft oo markaas aad kala socotaan barashada culumta teknolojiyadda. waxay noo socda casharadii goosgooska ahaa ee ku saabsanaa window 10. haddaba cashirka maanta waxaanu ku qaadanaynaa sidee markaas aad u manage garayn kartaa ama aad u maamuli kartaa faylasha iyo folderada computerka ku samaysan. sidee markaas u samayn kartaa folder, sidee haddii folderka aad tirtirto sidee dib ugu soo ceshan kartaa, sidee magaca uga bedeli kartaa folderka aad samaysay, iyo haddii folderka ay kugu jiraan gudihiisa foldero kale oo aad rabtid inaad folder inta soo move garaysid oo aad ku soo dartid markaasi uu kaa diida ama uu ku weydiiyo message kale oo ku yiraahdo labadan file oo isku dhacay sidee u xallin kartaa. waa cashir yar oo iska kooban laakiin muhiim ah. laga yaabay in markaas cashiradan waxay ku saabsan yihiin waa cashiro iska bilow ah oo markaas ku saabsan window 10. marka haddii mar walba waxbaad ka faa'iideysaa cashiradani la soco, waxayna faa'iido weyn ku yeelan doonaan markii aad kor u kacdo mustawahaaga oo kor sii noqdo. cashiradani dib ayay usoo laaban doonaan. haddaba markaa deertan waxaynu ka bilaabaynaa sidee markaas soo abuuri karnaa folder. haddii aad fiirsid keyboardka meesha aad taagantahay dhexda ah marka ingeysa hadda computerka ayaynu joognaa, right click ayaa ku siinaysaa qaybtaas. marka aad ku dhufatid waxaa kuu soo baxayo qaybtan. markay kuu soo baxdo waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay new folder. folderka cusub markaa deeran sameynayna new folder ku dhufo folderka. marka waxaan u bixinaynaa cashiro. markaas waxaad ku shubatay cashiro ayaad ku shubatay. casharada marka halka hadaad kusii dhifato oo aad folderka aad laba jeer riixdo wuxuu ku tusinayaa folderka wax kugu jira malahan folderkani. sidee marka folder kale ayaa rabtaa inaad ku dhex abuurto, waxaad samaynaysaa right click haddana leedahay, kadib waxaad riixaysaa new folder. qaybta waxaad dooranaysaa hadda new folder kale u bixisay. halkan mesela waxaa u bixisay xisaabta kale. folderkan waxaa ugu talagashay xisaab sidaas ayaa ku samaysay. folderka gudihiisa waxaa rabtaa markaas inaad ku abuurto file. folderka iyo fileka waa kala duwan yihiin. fileka ayaa hadda folderka marka hore gudihiisa gelaynaa, kadib halkaan waxaan ku abuuraynaa filean ku abuuraynaa. filashka marka haddii office ay kugu jiraan filasha dhinaca formatka u kala duwan yihiin. haddii aad u jeedo meeshaan kulligood filal waaye. hadda marka anagu waxaynu abuuraynaa folka document aan sameynaynaa. marka kan ayaad ku dhufanaysaa click ku sii. markaa ku dhufatid waxaan u bixinaysaa masalan waxaad leedahay xisaab 1 aan leedahay, xisaabta koowaad ayaad u bixisay. kadibna hadda marka sidaas waxa kugu samaysan. marka dib u laabatid oo arkaysaa kow folderka koowaad oo casharada, kadib xisaab ayaa u bixisay oo folder kale ay ku samaysay, kadibna waxaa samaysay file oo waxaa u bixisay xisaab. marka sidaa hadda waxaa ku baratay sida loo sameeyo folderka, sida loo sameeyo waxaa baratay gudihiisa folderka lagu sameeyo, kadibna file ugu samayn lahayd. haddaba waxaa baranaysaa marka sidee marka folderkan magac uga bedelaysaa. haddii folderkan aad tagtid, haddaa right click aad taabatid waxaa kuu soo baxaya calaamadahan. marka haddii aad rabtid inaad tirtid delete waa tiri kartaa, rename magac ayaa ka bedeli kartaa, waa koobiyeyn kartaa, waa kaad garayn kartaa, shortcut ka samayn kartaa. intaanba waa samayn kartaa. kan waa koobigii kan oo asagii oo kale rabtaa markaas inaad samayso. isaga oo la mid ah oo kale ayaa rabtaa inaad desktopka haddana soo saarato. kan waa midka aad ku tirtiri lahayd, midka magaca uga bedeli lahayd. haddaba marka sidaas marka aad ku baratid waxaan rabnaa marka haddii aad folderkan gudaha ku jiro uu kaa tirtirmo oo aad tiraahdo right click delete aad tiraahdo delete ayaan dhahay, sidee ku soo ceshan karaa marka. waxaa ku soo ceshan kartaa haddii aad tagtay hadda folderka aad furtid ma kuu soo baxay sababtoo ah waa tirtirtay. sidee ku soo ceshan kartaa marka. waxaa ku soo ceshan kartaa waxaad tegaysaa meesha mar kasta oo aad computerka wax ka tirtirtid waxay geli doonaan recycle bin. ilaa hadda ayaan ku tusin doonaa farqiga u dhexeeya laba jeer ayaa la tirtiri karaa. marna waxaad markaa tirtiraysa maca recycle binka waa ka tirtiri kartaa marka ugu horeyso aad delete dhahayso, ama se recycle binka markuu galo
ayaa inta sii gashida ayaad ka tirtiri kartaa. hadda kan recycle binka ayuu ku jiraa. waxaan rabnaa marka inaan soo ceshano, right click ayaa leedahay, meeshaas restore aad leedahay, dib igu soo celi ayaad ku dhufan kartaa. haddii kalena waxaad dhihi kartaa properties, waa dooran kartaa, kadibna meeshaana restore waa dhihi kartaa. labadoodaba waa isticmaali kartaa. kan ayaan hadda isticmaalaynaa restore dib. okay, kadib dib ayuu kugu soo celinayaa. markaad dib tagtid folderkaaga fiiri, waa kana dib ayuu kugu soo laabtay. xisaab faylashiidana waa ay ku jiraan. haddii marka aad u baahan tahay, tusaale ahaan oo kale kan baan waxaan rabaa inaan si toosa isaga dhan u tiro, markaas waxaad riixaysaa shifti, calaamadda shiftiga ay ku qoran tahay keyboardka ayaad haynaysaa. kadib markaa shiftiga riixdid, kadibna delayed aa leedahay. wuxuu ku leeyahay muujeedaa markaan si farqiga u dhexeeya markii hore. hadda marka muxuu ku leeyahay, ma hubtaa in aad sidiisaba computerkaaga dhan aad ka saaraysid filekan. haddaa yes tiraad wuu ka saaraa. hadda marka farqiga u dhexeeya rabaa inaan ku tusay marka kalena fiiriyaa. markaana right click dheh, haddii delete aan iraado horow ka tiraa waxba iima sheegaayo, sababtoo ah waa soo ceshan kartaa, laakiin marka kale ma soo ceshan kartid. halkaas ayaa marka waxaad ku baratay sida folderka loo tirtiro, sida markaasi folder gudihiisa folder lagu sameeyo, sida markaasi faylka loo sameeyo. kadibna adiga qaabka aad isugu habaysan lahayd folderka waxaad ku abuuran kartaa halkan, waxaad ku abuuri kartaa desktopka, dhinacan ayaad ku abuuri kartaa, dhinaca leftiga sida aad u jeedid. waa meelaha kan dhanna waxaa loo yaqaanaa file explorer la yidhahdaa computerka. halkan ayaad mar walba ka heli kartaa, ama inta ayaad ka soo bixi